laakiin hadalka cabdirasaaq garashadiisa intay leeg tahay iyo gaabnida aqoontiisa ayuu maanta muujiyey. war weerar baad soo qaaddoon waxbaad dilaysay haddii lagaa xoog roonaaday dee xasuuq maaha. xasuuq waa kaad samaysay shalay ee aad guryaha kala baxaysay jasiira dadka shacibka ah. marka miisaanka la wada saaro cali khaliif iyo ninkan iminka hadlayay aad weydiinaysay in khaliifna dee waa rubuc iyo kiilo. dagaalkii dhammaan lacagtii lagu dagaalamayey ayaa laga dhigayaa tabarucaad dad barakacay loo ururinayo. wana lacagtii lagu dagaalamayay rasaasta ayaa soomaaliya keeni la leeyahay oo ay culimmadii la soo fadhiisanaysaa meeshii warbaahintii. waa qabiil meel walba isaga habar wacday oon qofu maqnayn ilaa sheekh umalkoodii bay wataan argagixisadoodii bay wataan ilaa maanta waad og tahayoo weerar may qaadin mid lagu soo qaada mooyaane. waxay kula tahay inay garan weyda weerar qaad. waxay kula tahay hubkaa iyo ciidankaa dul fadhiyaa inaanay awood lahayn inay qabtaan meesha. laxaja ayaa ka dabasanta kalaascaanoo dee jabadooda ama maleeshiya ka dagaalamaysaa inay uga dhigaan ma garanaysaa moral oo aad u niyad jabsan oo baktigu xalaal u yahay. ugu horrayntii ibraahim sidaad la socoto waxaa maanta xubintii guddoomiyenimo iyo guddoomiyennimadii golaha wakiilada iyo kasii mid ahaanshaha xisbiga waddan iska casilay guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif. guddoomiyuhu wuxuu sheegay inuu dhammaan xilalkaas oo dhan iska casilay. ibraahim adigu seed u aragtaa xilalkaasi uu guddoomiyuhu iska casilay maanta sidayse ama maxay ka beddelaysaa go'aankii ay maxkamadda dastuurigii dhowaan ku wargelisay guddoomiyahaasi iska casilay xilalkaasi? siciidow inuu xilkii iska casilay iyo xubinnimadiiba waxaan u arkaa dee isagaaba inoo sheegay inuu kula dagaalamayey xilkan uu hayo somalilan oo uu rabay inuu dadkiisa ugu hiiliyo oo uu dagaalka ku dagaalamo teatalka uu hayo intii iminka uu hayey dee uu dagaal ku maqnaa wuu inoo sheegay. waxaa kaloo inoo sheegay inuu dee dagaalka oo aan dhicinba ka guuray waddanka uu maxastiisa iyo reerkiisa kala baxay oo uu weerar u diyaar garoobay. marka waxaan u arkaa dee isagaaba inoo sheegay. midda kale markuu arkay golaha wakiiladu naawilaya in laga difaaco tiina wuxuu ogaaday inaan laga difaaci karayn maanta oo xukunku ku dhacayo. marka xukunka intaan kugu dhicin nin iscasilay iska dhig inuu dee ujeeddadiisu tahay ayuunbay noqonaysaa. isagaana inoo sheegay dadkana dee waa wada muuqataa wax maanta u baahan baa ma garanaysaa in la macneeyo dee ilamaha su-aashaas. ibraahim marka laga tago iscasilaadaasi uu guddoomiyuhu xilalkaasi iska casilay wuxuu ku soo ururiyey mas-uuliyaddii uu qaranka u hayay gebi ahaanba laba gaadhi taasoo mid ka mid ah uu sheegay in uu ku wareejin doono maamul la soo dhisi doono dhowaan oo uu ku sheegay magac ahaan SSC Khaatumo. ibraahim dadku aad ayay uga falceliyeen arrintaasi iyadoo dadka qaar ay leeyihiin ujeedka uu gaadhigaasi u soo hadal qaaday waxay ahayd inuu dariiq ka dhiganayo uu dadka ku wargelinayo in maamulkaa cusub la soo dhisayo. ibraahim adigu arrintaas eed u aragtaa? iyadoo gaadhiga waan arkay weli waan wareejinaya cabdirasaaq laakiin hadalka cabdirasaaq garashadiisa intay leeg tahay iyo gaabnida aqoontiisa ayuu maanta muujiyey. because ninka ragii inuu caqli lihi markuu dagaalka u badheedho uu haddii alla kuu roon yahay badheedhihiisa dee in ku socdo waxbuu dee ma garanaysaa la hadhaa ama waxbuu mastuuraa ama waxbuu si kale u dhigaa. siduu u hadlayey dee waxa ka muuqatay caqli yaraan. gaadhigan yar furahayno tusayuu lahaa gaadhaan wareejinayaana dee ma garanaysaa in wax macnale ma samaynayse hanti ka weynoo malaayin doolar buu maamulayey dal dhan buu ninka saddexaad ahaa wax dhan baa ku maqan oo aan lagala xisaabtamin. marka gaadhe wax macno ku fadhiya maaha. maamulkan uu sheegaya leey uu inagu walacsanay leey wala samaynayaana dee cali khaliifo ninka aqoon badan ama ka raganimo badan aanu jirin hadduu jirana uu yar yahay ayaa dee soo maray oo wax alla wuxuu inagaga qaaday aanay jirin. cali khaliifni adduunka naaf yaqaano kale gaalada ah ajanabiga ah soomaalida naaf yaqaana oo labadaba ku wanaagsan dhaqanka soomaalida iyo dibaddaba ayuu ahaa.
marka miisaanka la wada saaro cali khaliif iyo ninkan iminka hadlayay aad weydiinaysay in khaliifna dee waa rubuc iyo kiilo marka waxba macnee le uma arka hadalkiisa uu leeyahay maamul baanu samaysanayna wax alla wax uu garanaysaa aan dee faankii carruurta ahayn umaan arkayn anugu ibraahim guddoomiye hore cabdirasaaq khaliif wuxuu ammaan kala duldhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo dabcan wasiirkiisa arrimaha gudahaba ibraahim wuxuu hadalkiisu u dhandhamayey dareen ahaan inay wax badan kala qabteen howlaha ay ku jiraan iyo dhismaha maamul ee ay doonayaan inay samaystaan ibraahim arrintaasi adiga siday kuula muuqataa hase ahaatee ma waxaa jira waxaanay dowladda somalilan ka warqabin oo ka socda magaalada muqdisho siciidow ammaanta uu kala dul dhacay xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraha iyo qolada dowladda soomaaliya waxaan u arkaa un anigu inay siyaasad tahay oo isleeyahay dadka tuhun geli reer somalilan oo iska dhignima ay soomaaliya isku xidhan yihiin isaguna maaha garaadada laftoodu xamar jooga suuqay soo gashadeen maalin dhaweyto in reeraha hawiye ay ardaa lacag u siiyeen malaayin doolara madaxweynuhuna lacag badan ku caawiyey waxaasay suuqa soo gashadeen waana brobagando ay doonayaan dadkooda jooga iminka laascaanood jabadooda ama maleeshiya ka dagaalamaysa inay uga dhigaan ma garanaysaa moral oo aad u niyad jabsan oo baktigu xalaal u yahay oo cunto iyo sigaar toon aan haysan oo busaarad ku dhacday ayuu doonaya inuu rajo uga geliya halkaa in la wax u soo socdaanoo la ictiraafay oo maamul loo ictiraafay oo dowladda u hiilisay soomaaliya oo yani waxaasuu de ka dhigaya moogta marka intii unbuu isna ka daba qaatay marka wax macnale uma arko xasan sheekh dowladdiisu xitaa hadday soo raacdo iyadaaban cidla fadhida waxaan ogaya anigu xoogaal baan ahayoo maleesiyadii uu abuuray macawisleyda ahayd xasan sheekh ee la dagaalamaysay argagixisada deegaanada hawiye kala dagaalamaysay ayuu dhaqaalo u laayay kuwaasuu awood u laayo halganku ku jiro ayaa ka weyn mid walba halgankaa uu ku jira argagixisadana raggay ku wada jiraan waa kuwa cabdirasaaq xukuma oo farmaajo iyo fahad oo dhinacan kale ayaguna dagaalka gali jira oo argagixisada ay isku xidhan yihin ilaa kuwa bu'aala jooga iyo jubbooyinkan iyo jilib jooga ay isku xidhan yihin marka inay isaga sumaynayeen oo iminka ay sun ugu tala galeen ayaan ogahay oo fashilan oo la ogiyo xasan sheekhna ogi somalilandna og tahay marka nimanka aysa sumaynaya ee sunta isu walaaqaya dagaalka siyaasaddii ka gaadha heer aysa sumeeyaan waxa uu inoo sheegi karaa oo inoogu sheegi karaa ee uu inoo sheegaya waa been runta laakiin waa taa aan kuu sheegay marka wax macna ku fadhiya hadalkiisa uma arko ugu dambayntii ibraahim sidaad la socoto adiguba waxaa magaalada muqdisho ku sugan qaar ka mida garaadadii dagaalka ka riday magaalada laascaanood halka qaar kalena ay haatan ku sugan yihiin ama ay dhowaan gaadheen dalka kenya taasoo la naawilayo in shir ka dhaco halkaasi ama magaalada nairobi ibraahim shirkaasi oo la doonayo in lagu yagleelo ama lagu sameeyo maamul loola baxay SSC khaatumo taasoo lagu wado in madaxweyne kumeel gaara looga dhigo guddoomiyihii hore golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ibraahim adiga arrintaasi siday kula muuqataa waa maxayse saamaynta ay ku yeelan kartaa xisbiga waddani oo in badan difaacayay guddoomiyaha hore iyadoo garaadada aad leedahay xamar bay joogaan iyo kuwan aad leedahay nairobi bay tegeen labaduba waa lacag doonu iyo haddii alle kuu roonyey de wixii ay islahaayeen inay ku tala galeen markii hore dagaal ku galeen ayay socon waaye ku hor yimi dee niman dowlad la dagaalamaya bay noqdeen awalna waxay isku qancinayeen been isugu sheegayeen inay reer isaaq la dagaalamayaan isaaq dagaal ku jiraana oo ilaa maanta ka qayb galay ama ogina ma jiro caynabada u dhow lagama oga isaaqa degani ma oga cidda istilayaan waa dowladdii somalilan cidda la dagaalamaysaana waa qabiil meel walba isaga habar wacday oon qof u maqnayn ilaa sheekh umalkoodii bay wataan argagixisadoodii bay wataan qurbajoogoodiiyo cid walba le bay wataan oo deegaan walba oo kuwa etoobiya iyo kuwa kenya ku jiraan kuwii soomaaliya ku jiraan haddii alle kuu roon yahay cid uma maqna dagaalkoodu 99% buu ayaga maraya halka somalilan 10% ay marayso somalilan awood bay u leedahay inay laascaanood qabato laakiin waxay la jecel ka haysaa
inay teeda noqonaysay ogto inay dadkaa laynin ilaa maanta waad og tahayoo weerar may qaadin mid lagu soo qaado mooyaane ma waxay kula tahay inay garan weyda weerar qaad ma waxay kula tahay hubkaa iyo ciidankaa dul fadhiyaa inaanay awood lahayn inay qabtaan meesha laxajaagaa ka dabasanta waa difaac ilaa maalintii ilaa maanta weerarna ayaga ahaa marka muhiim waxa weeyaan nimankan waxay u tegeen dagaalkii markii uu ka hor yimi waxay bilaabeen soomaaliyay waana dhaqan ay leeyihin marka waxba iska celin kari waayaan inay soomaali u baaqaan dagaalkii dhammaayee lacagtii lagu dagaalamayey ayaa laga dhigayaa tabarucaad dad barakacay loo ururinayo waana lacagtii lagu dagaalamayay rasaasta ayaa soomaaliya keena la leeyihi oo ay culimmadii la soo fadhiisanaysaa meeshii warbaahintii yani indha adag halka gaadheen waa niman markaa ummadda ma garanaysaa sida u dhaqmaan cid kalena u dhaqmin beri dhaweyto waxaan daawanayay heer jaarsa ah oo dee dira iyo niman gariyo ay isdhaleen isu abtiyiinoo wadadega baa isdilay hayaay soomaaliya inoo soo gurmaday oromana laynaysaa bilahay hadda waa laba reer oo isyaqaano is dhalay oo jinacsanaya intan tulligula iyo intan deegaanadan wadadega oo weligood isdilayo anigu aan aqaano ma garatay yacni waa nimankaa soomaaliyay odhanaya marna faanaya odhanaya annaga adduunka ugu badan oo gamad ka siiyanu xasuuqayna waa nimankaa marka la istilo odhanaya waa la xasuuqay war weerar baad soo qaado waxbaad dilaysaye haddii lagaa xoog roonaaday dee xasuuq maaha xasuuq waa kaad samaysay shalay ee aad guryaha kala baxaysay jasiira dadka shicibka ah waa kaad burcaad kala baxaysay ma garanaysaa dadka shicibka ee ganacsatada ah ee isirka loo dilayay kaasa xasuuqa kaasaan tirsanaa anagu ciidamadii islaameyna kaga dhintay halganka ee ayaguna wax dilayay ayagana la leynayay annagu xasuuq ma naqaano xasuuq waxa weeyaan dowlad shicibkeeda intay guryaha kala soo baxdo madaxa ka toogato isru disha iyo qabiilka ilaahay ka dhaliyey marka waxaan leeyahay nimanka garaadada ah xamar iyo jagay maxayday iyo haddii alla kuu roon yahay kenya de waa nimanka bacda sita ee dagaalkii u bedelay tuugsiga ee doonaya weliba inay soomaalida kale rasaasta ku dagaalami lahaayeen lacagta ku dagaalami lahaayeen isku dayaya inay ka qaadaan weliba